بسم الله الرحمن الرحيم وما حسنتهاي محمد أندر يو MMTV caaw halkan waxa ka dhacaysay wadoogeyn kulan aynu la yeelanay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ee cusub iyo xubno kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada waxa xusid mudan kulanka waxa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu kulankani daarnaa golaha cusub iyo saxafiyiintu sida ay isla jaan qaadi lahaayeen waxyaabihii andarow la dul istaagay laga wada hadlay waxa kamid ah xeerka saxaafadda gudoomiyaha waxaanu kala hadalnay maadaama saxafiyiinta dacwadahooda lagu qaado Soomaali Banal Code ama xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah xeer qadiimi oo aan la jaan qaadayn saxafiyiinta cusub iyo nolosha cusub iyo jiilka cusub oo dambi u yaqaan arrimaha dastuurka Soomaaliland uu arko inay xorriyatul qowl yihiin in la ansixiyo oo ay ka golaha wakiilada Soomaaliland ay ka hawlgalaan waxaanu kala hadalnay arrimihii haweenka u gaarka ahaa oo ay kamid tahay qoondadii haweenka oo ay kamid yihiin xeerkii kufsiga gudoomiyaha waxa xusid mudan niyad wanaag baanu ka arkaynay waxa uu noo sheegay in waxaasi oo dhan uu si dhow noogala shaqayn doono xeerka saxaafaddu carabka ku adkeeyay gudoomiyuhu in ajandayaasha ugu horeeya lagu dari doono qoondadii haweenka iyo xeerkii kufsiga iyo xeerarkii kala dumarka la xidhiidhay oo xeerka jinsiyaddu kamid yahayna dhammaantood niyad wanaag buu ka muujiyay gudoomiyaha iyo xildhibaanada cusub aynu maanta halkan kula kulannay